السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو عشر كيني صدحات قيمة respiratory system كا. ما توحن كهلي دونا pleural membranes كا أو كوزرون كوريكسن لانكيس كا يو inside the thoracic cavity كا. مركا إن شاء الله مركا ورا إن شاء الله نكون موجنا anatomical لوست نكون موجنا إن شاء الله. أنكبلنا external pleural cavity ka markaan ka bilowno this is external pleural cavity ka markaan ka bilowno waa halkaas uu dhacaan waa inside the thoracic cavity adherence wuxuu ku xidhan yahay nooca thoracic cavity ka ama rib cage ka waxaan naqaano this is oo loo yaqaano parietal pleural cavity and also wuxuu dhacaa superior surface of the diaphragm diaphragm dushiisana oo maraa marka soo kale waxa haysta diaphragm ka dushiisa like this wakaasa pleural loo yaqaano parietal pleural membrane and also the right lung is like that was coming parietal pleural membrane iskuna halkaas u maraa and like also the superior surface of the diaphragm. haddaba the surrounding lungs qaybta kale waa labo pleural membrane this is ka kale wuxuu haystaa isagu waa adherence in the lungs lungisku ku dhegsan yahay maxaa loo yaqaanaa visceral pleural membranes this wakaasa saasu u haystaa and also like that alright iskuna waa sidoo kaleete wareegsan yahay hadaba anatomical markaan ka hadalno waa parietal pleural membrane oo waa inside the thoracic cavity iyo visceral pleural cavity visceral pleural membrane isbuu jeedaa oo surrounding the lungs inherence buu ku yahay wuxuu macnaha ku dhegsan yahay wuxuu sidan ku yahay the lungs ku sidaa ku yahay marka ay sidaa yihiin waxa jira spaces u dhaxeeya labadoodan space u dhaxeeya oo potential spaces marka hadaba markaan ka hadalno the parietal pleural membrane isku markaan ka hadalno waxa uu leeyahay nociceptors waxa leeyahay waa pain receptors buu leeyahay that means pain receptors kaasi it means qofku wuxuu dareemaa xanuun aad if there is hadii uu some shay oo halkan ka soo traumatical ama accident uu dhaco oo halkan ka soo galo shaygaasi waa wuxuu leeyahay pain receptors buu leeyahay pain receptorkaasi waa xanuun aad saayid ah sometimes marka la sameeyo qaliin marka lagu sameeyo thoraciska the pleural membrane xanuun aad saayid u leeyahay saad darteed waxa la isticmaalaa anesthesia ayaa loo isticmaalaa haddaba waxa jira anesthesia ayaa loo isticmaalaa waxa jira spacekas oo ku jiraan fluids baa ku jira fluid ayaa ku jira ana wuxuu leeyahay markaan ka hadalno pressure-kiisa markaan ka hadalno waa 4 space-ka pressure wuxuu leeyahay 4 millimeter of mercury 4 millimeter of mercury of pressure ayuu leeyahay spaceskaasi halka gudahana dibaddana atmospheric pressure ku ahaa 760 millimeter of mercury ahaa haddaba sometimes pleural membranes kaasi waxa ku dhici kara air ayaa buuxisa if there is traffic accident hadii uu dhaco kaleete oo halkan ay wax dalooshanto air baa soo gasha kadibna air baa buuxisa
potential spaceski airta marka ay buuxiso waxa la oranayaa pneumothorax ayaa la yiraahdaa pneumothorax ayaa la yiraahdaa ama hadii uu meeshii dhaawac galay oo uu accident dhacay ama ay lungisku meelahan wax ka noqdo oo accident ku dhaco waxa mararka qaar dhacda inuu spaceskaasi buuxsamo dhiig uu buuxsamo oo loo yaqaan pneumothorax loo yaqaan haddaba sometimes marka ay dhiiggaasi halkaasi uu galo hawo ay buuxiso waxa loo yaqaan pneumothorax hawo buuxisa pneumothorax balonaya taasina aad bay dangerous u tahay aad bay dangerous khatar bay aad u tahay it's very dangerous waa khatar aad sometimes because of marka pneumothoraxkaasi markii hawadu gasho oo hawadii buuxsamo lungiska muxuu soo buush garanaya hirtigii and blood vesselski kadibna qofku waxa ku dhaca wax loo yaqaan anesthesia marka naqaska ku dhagaya ma koomo galaya or deaths ama uu dhimanaya qofkaasi marka waa arin wax la sameeyaa sometimes xanada qaarkood baa lagu arkaa marka waa maxay hayday si dhaqsaaba loo daweeyaa as emergency ahaan markaan isticmaalayno waxa kale oo isticmaalayna pleural membranes-ka iyo parietal pleural membranes and visceral pleural membranes wuxuu sameeyaa marka aan hawada qaadanayno hawo qaadanayno wuxuu sameeyaan waa thorax-ka ay sa wada raacaan ay wada sameeyaan markuu relaxation sameeyo internal intercostal muscles-kaasina waxay soo sameeyaan down like this halkan oo kaleetana halkana like that at the same as weeyaan thorax-ka marka uu contraction sameeyo waxay sameeyaan down buu soo raaca diaphragm-ka hoos soo raaca like this marka uu relaxation sameeyo korbood saas wada socdaan like this halkana waa saas oo kaleeta saas wada soconaya korba wada baxayaan hoos soo noqonaya like that some clinicals baa jira oo maxay soo mararka qaar ku dhaca clinicalskaas oo kale waxa kamid ah sidaan hore u soo sheegnay if there is trauma hadii ku dhacdo traumatic hadii ku dhacdo oo inta aan soo sharaxnay mararka qaar waxa dhacda in infection oo ku dhaco parietal pleural membranes in infection ku dhaco daisna san hore u soo sheegnay wuxuu leeyahay baan niri pain receptors daas marka qofku wuxuu dareemaa pain aad u dareemaa marka xanuun aad u dareemaa marka oo qofkaasi dareemaa marka infectionskaasi ku dhaco sometimes waxa ku dhici kara accidents ba ku dhici kara oo qofka ka gaari kara dhaawacyo waxa ka gaari kara it's very marka dangerous way marka insha Allah salahan hadii aan sameeyno like this gacmahayga ayaan ka soo qaadaya inay yihiin waa parietal pleural and visceral pleural membranes. Visceral pleural membranes normally was as normally saas isku haystaan ay wada socdaan. Normally malaha space saa u balaarno soo kala fog yihiin maaha laakiin waa saas. Marka uu lungisku contraction sameeyo in external intercostal muscles marka contraction sameeyaan up bay sameeyaan oo way wada korba wada baxaan because of marka contraction sameeyo oo parietal pleural membranes uu up sameeyo this the lungs wuxuu sameeyaa volume-giisu uu weynaado u balaanaya volume-kiiba increase noqonaya saddeed korba wada baxayaan marka hadana waxa la sameeyaa marka ay contraction relaxation marka uu sameeyana degrees uu hoos soo dhacaya volume-kiina degrees uu noqonaya like that saas wada soconaya but if there is some air hadii ay soo gasho oo space-ki air baa qabsanaysa saasayna marka noqonaya air baa kala dhaxgalaysa airta markay kala dhaxgasho air baa kala dhaxgalaysa sometimes waxa laga yaabaa marka uu neefta up noqonayso inay maxay hayday kani hoos iskaga dhaco oo up marka uu noqdo like that ay israaci waayaan ayaa dhici karaysa marka okay waxana jira caadi ahaantooda fluidskaasi marka uu halkan soo galo wuxuu sameeyaa kala tusaba wadnuhu lungisku marqaad deeris wuxuu ku sababa collapse inuu noqdo lungiskaas inuu collapse garoobo fluids baa galay Soomaa halkay iska wada raaci lahayd waxa laga yaabaa lungs collapse garoobo isku collapse noqdo lungiski uu collapse noqdo marka insha Allah waxaan videogana ku joojin halkaas inoogu ekaan doonaa insha Allah videoga xiga waxaan insha Allah ku soo qaadan doonaa alveolar and gaseous exchange
alveolar oo ah meeshuu gaseous exchange ka dhaco iyo gaseous exchange soo dhacaan aynu insha Allah video xigna ku soo qaadan doonaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.